ciidanka wadajirka ee loo diyaariyay xasilinta amniga magaalada Muqdisho ayaa maanta howlgalka ugu horeeyay ay Muqdisho ka sameeyeen waxay degmooyinka wadajir iyo Shangaani ka soo qabteen hub dareys ciidan goobo lagu iibiyo isla markaana lagu bedelo aqoonsiga ama nambarka qoriga iyo waxyaabaha maanka dooriya kuwa la doonayo in lagu qalqalgeliyo amniga caasimadda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ciidamadaasi sameeyay howlgalka guuleystay ugu tagay booqasho dhiirigelin mahadcelin isugu jirta waxayna u soo bandhigeen hubkii iyo waxyaabihii kale ee ay ku soo qabteen howlgalka xasilinta caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo Hanuuninta Dadweynaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow ayaa ka warbixiyay noocyada hubka lagu qabtay howlgalkaasi iyo tirada ay gaarayaan. saaki aroortii 6 aroornimo waxay ka howlgaleen degmada Wadajir xaafadda Xawtaako siiba meesha siliga Ameerikaanka halkaas ay ku soo qabteen 17 qoriga aad u jeedaan qoryaha iyo 3 bistooladood. sidoo kale halkaas waxaa lagu soo qabtay tuutayaasha militariga iyo ciidanka booliiska sidoo kale calaqa iyo xashiishadaha. howlgalkaas wuxuu ahaa kii saaki ka dhacay degmada Wadajir xaafadda Xawtaako. sidoo kale ciidankan isku dhafan ee ka howlgalaya xasilinta magaalada Muqdisho waxay iyagana ka howlgaleen degmada Shangaani waxaana soo qabteen meel hubka lagu gado laguna sameeyo oo runtii arin aad iyo aad loola yaabay ahna meelaha muxuu ahaa lagu bedeli jiray qoryaha iyo nambaradooda meelaha lagu sameyn jiray arrimaha hubka oo fabrication badanna laga sameyn jiray. goobtaas iyada waxa laga soo qabtay 2 qori iyo 3 bistooladood iyo qalabkii ay ku sameynayeen. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo la hadlay ciidamada wadajirka ee loo diyaariyay xasilinta amniga magaalada Muqdisho ayaa ku amaanay hawsha wanaagsan ee ay ku bilaabeen qorshaha dardargelinta amniga magaalada Muqdisho isla markaana looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan horumarka amniga dalka. waxaan aad idinkaga mahad celinayaa inaad u soo labisateen inaad naftiina u hortaan wadankiina inaad habeenkii madow guuraysaan idinkoo sugaya amniga. waa arkay shaqadii aad soo qabateen waa arkay waxyaabihii iyo qoryihii iyo bistooladihii aad soo qabateen iyo xashiishkii iyo calaqii iyo wixii aad soo qabateen. intaas aad samayseen xalayta keliya dib ummadda Soomaaliyeed haysta qayb ka mid ayaa ka qaadeen. waa idinkaga mahad celinayaa waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad sii wadaan dadaalka. laakiin haddii shacabku annaga uu naga shakiyo amniga ma sugi karno. annagu inaan ammaano la nimaadno waay. dadka Soomaaliyeed oo aad u tagaysaan waa in la ixtiraamaa. laakiin sida keliya aan horumar ku gaari karno waa inaan amni helnaa. amnigana cidda ka mas'uulka waa taliyaashiina laakiin wiilashii gabdhaha halkan jooga oo u soo labistay inay dalkooda difaacaan aniga madaxweyne waa idin amaanaynaa. wax walba dawladda xaq u leedahay waa heli doontaan. sida keliya aan horumar ku gaari karno kulliga sharaf iyo ciidan aan ku heli karno waa inaan wadankeena hagaajisanaa. dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maqaayad ku taala xaafadda Cali Kamin ee degmada warta nabadda kula kulmay dadka deegaanka isagoo ka xog wareysanaya xaaladooda nololeed tan amni iyo waxyaabaha ay doonayaan inay dawladdu qabato. Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa dadkii uu la kulmay waxay u badnaayeen dhalinyaro iyo arday wuxuuna ku dhiirigeliyay inay ka shaqeeyaan ammaanka xaafadda iyo kan degmada isla markaana ay si wanaagsan ula shaqeeyeen dawladda oo tan shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin. wadanka shaqo la'aana inaan nabadgelyada ka shaqeyno waa horta dhaqaalaha kor u qaadno inaan nabadgelyada nagala shaqeysiino waa muhiim hadii la yiraahdo.